بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفت لي كسر وهذا صحن صحو بيوري عن هالتي channel بإذن الله كريم ما أنتو حاربانا عند اللقاء بصدو قايبه كم إذا قرحنتينا جورج الحسان كسميسين شرني خرواتانو يوري جورجاجا ألعبتكو تالا إن عن إن عب إن مرصو marka insha Allah biidmilaahi kariim hadda ka hor baa gabadh aan YouTube ka saaxiib golaab waxay igu tiri noo soo diyaari alaab oo maaragtay aanu kor iyo kale ismarino marka alaabta tan magaceeda dhanba waxa la dhahaa igu soo haad baaba la dhahaaba ما شاء الله تبارك الله ولا شيء سوي لك فتم صحي قلت لي ولي بوضياش ينقد تجنا وحنا نسقو قرحنا نوسو قلي وضياش وح كستول يسقو قرحيو إيو وح كستبا كما تجان أنت بدلنا قبلها معركة جاري أنت معركة آد باللولة متشوق حال سكلت شوقا قبلها معركة عاوي مذوباهن مركها ما شاء الله تبارك الله إن هذا مركها لعبت محردا يجسو هاد لعبت ترق يدمر ولا مرسن كرا إن ما أنا قبل كليا يسقو حصو هديك ورن قبل يسقو حصو شركة دي دلالة يو نظيف هاي ودقوي هاي دويل كنا أو maaragtay uraya soo dhibaato maaha ama sariirta markuu ku jiifsado uu go'ay cagahii jiidanayo go'ay duuduubanayo marka wiil iyo gabadh baan in la isnadiifiyo iyo in la isdhaqo iyo in la is udgooniyo waa loo baahan yahay because nadaafadu waa nadaafatul iimaan nadaafadu waa qayb iimaanka kamida in udgoonku waa sunnaheeni oo nabigeena kaleey salaatu salaam waa tuu udgoonka jeclaa iyo cadarka hadiyad uu bixiyana cadarka ugu jeclaa hadiyad la siiyana cadarka ugu jeclaa marka udgoonka wax walba waa loo baahan yahay quruxduna waaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala jalla jalaalu baa quruxda jecel innaguna quruxda waan jecelnahay wax walba qurux badan ba ma sha Allah tabaaraka Allah waxaan macsi ahayn oo qurux badan baa waynu jecelnaa alaabtan marka maxay ka kooban tahay waxaan soo halka ku soo diyaarsaday xulbad baaquliga biyo ku jiraan xulbad oo aan hal maalin radiyay fridge kan sii gashtay iyo timir aan lafihi ka guray baan isku dhex darsaday timirta haddaan ku daray dhinaca waxay ugu jirtay saliid saytuunta waad badin kartaa hadda dadka maartay dry skin ka taa waad sii badin kartaa aniga oil skin baan ahay marka waan maaragtay waan isku yareeyay saliida laba malqacdood baan ka dhigtay wata xulbadii iyo biyaheedu xulbada hadda halka marka hore dhaqadid marka biyaha lagu radiyo lagama daadiyo hadii kale waxa ka dhax nafaqadii baa ka baxaysa hadii aad urta xulbada nacab tahayna liin dhanaan baad ku dari kartaa xataa hadaad nacabeysid xulbada aad nacabta urteeda liin dhanaan ku dar laana xulbada hadii xitaa lacab jimsiga ka soo baxda laakiin liin dhanaan hadii lagu daro kama soo baxdo okay dhinaca kale waxa weeye baradhada cas baradhada aan ku karinay bariiskii suugadiisa aan ku sameeyay baradhadii weeyaan baradhada galkeeda ka fitamiin badan gudaheeda waxa ku jira marka galka xitaa cuntada waa lagu sameystaa dhinaca kale waa laba malqacado boorasha hal malqacado koofi ah laba malqacado daqiiqda cad ah iyo hal malqacado huruud maartay huruud ah ما شاء الله تبارك الله انتاس ayaan ma karkarinayo hadaan karkariyo dabka ka dilaya ma karkarinayo just waxaan sameeynaya waan isku shiidaya intaas quruxda waad yaabaysaa markaan isku shido inta ay soo hadha caagaasaan ku shubanay inta kale anaa muluq iskaga siinaya biidmillaahi kariim usually caaga wax kuma shubto laakiin hadda caaga waan iskaga shubanaya because dhala inta qaadamahayn daaqada waxaan intusayaa marka waxa mooyay dhibicda roobka ila arkay roob waxa da'ayay subxaanallah cajiib ah oo horta qabow badan watay laakiin aad roob naxariis badan oo waxaan soo xasuustay buurtii daalaan ba soo xasuustay buurtii daala intii taqaana ama buurtii sheekh labada mid buu soo xasuusiyay runtii ما شاء الله تبارك الله حلية الروب كداية وحي كجرتا حلية الدعاء إلهي سبحانه وتعالى أقبله بكجرتا مركا وموضوع كلا تاسي مسيقليو وقتيا لكن دعاء الله أقبله وحلية الروب كداية كامدة دينا عكلا باقولي كلا وحا يقول سميسنا وحوها cilaan isaga meeshu iska yaali cilaan aan markaa rabeena marsado marka waxaan deesaa kor iyo kale isugu duugo ayaan cilaan kala marsanay marka waxa daba iyo dacalinta timaha maartay mara iskaga xidhid baa saa isugu raadinaysaa waxaan ku yiri waliba dadka kulaylaha wax kaga fiican inta rabtid baa ku joogi kartaa saacad laba saacadood half an hour adiga inta rabtid ka bacdi masqusha tagaysaaye wallahi waxaan ku yiri dhadhan dalxash baad noqonaysaa jirkaagu saas uu siibsiibanay soo adagu yaabi doona heedha maxay la siibsiibanaysaa dhihi doona marka kaliga ah siiban oo jid soft ah sameeyna odaygana u mariyo xataa jimcayaasha iyo orado intaad masaajidkaadan dhuqus kaga soo siyaalaabtan dhaho isku dhaq
wiilasha iskaabulada laftigooda ha isku nadiifiyaan maasha Allah tabaaraka Allah gabadh iyo wiil wixii aan soo galiyo maadaama wax natural yahay gabadh iyo wiil ma kala lahaanayaan biidmillaahi kariim because quruxda anaga jecel wiilasheedaba waa la jecel hadana wiilasheeda qurxisanaya noo qurxinaya marka weydinkaasa ilaah subhanahu wa ta'ala han caafiyo wixii dambi ah oo aan ku hadlay waxay ka ahaatay naftayda iyo min shaydaan wixii wanaagan soo gudbiyay ilaah subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka hay saaro laguma janno tago amal la sameeyo waxa lagu janno taga ilaahay naxariistiisa ilaahay hayno wada naxariisto quluubteena xagga daacadiisa ha u jeediyo allahumma yaa muqallib alquluub thabbit qalbi ala diinik walaalahay qaali waa mahadsantihiin ilaahayna wada xifdiyo dhamaanteenba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maca salaama